magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolada dhexe ee Soomaaliya ayaa maanta waxaa ka dhacday doorasho madaxweyne oo ergada shirka gobolada dhexe ka qayb ah doorteen doorashada madaxweynenimo ee maamulka gobolada dhexe waxa uu tartamayay musharaxiinta kala ah Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan iyo Cabdisalaan Maxamed Xaaji ayadoona cod gacantaaga ergada loo qaaday oo ku guuleystay madaxweynenimada gobolada dhexe Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan waxaana durbadiiba markii la doortay magaalada Dhuusamareeb laga dareemiyay dabaaldeg loo sameeyay madaxweynaha loo doortay maamulka gobolada dhexe xafladda maanta lagu dooranayay madaxweynaha waxa ugu horeyn ka hadlay gudoomiyaha guddiga madaxtinimo ee doorashada Cabdiraxmaan Cadde oo halkaasi ka sheegay qaabkii ay u dhacday doorashada maanta lagu doortay madaxweynaha maamulka gobolada dhexe waxay u kala codeeyeen Sheekh Maxamed Shaakir iyo Mudane Cabdisalaan waxay kala heleen codadkan soo socda marka koowaad waxaan sheegayaa murashax Cabdisalaan codadka uu helay murashaxa labaad wuxuu helay 14 cod murashaxa koowaad Sheekh Maxamed Shaakir wuxuu ku guuleystay oo uu helay 290 cod sidaa darteed laga bilaabo saacadan oo saacadu ay tahay 7 saac iyo 22 daqiiqo taariikhda nimadan hore u soo sheegay ay tahay Sheekh Maxamed Shaakir waa madaxweynaha dowlad goboleedka gobolada dhexe sidoo kale waxa isna halkaasi ka hadlay musharaxa laga guuleystay Cabdisalaan Maxamed Xaaji oo u mahad celiyay ergooyinka sida wanaagsan maanta u doortay madaxweynaha maamulka gobolada dhexe horreyn horta aad iyo aad ba u mahadsantihiin intii aniga ii codeysay iyo intii musharax kale u codeysayba waa mahadsantihiin wuxuu ahaa hawl aad iyo aad looga soo shaqeeyay muddo dheerna laga soo shaqeynayay inaan halkaan soo gaari doono dad badan shaki ayaa uga jiray laakiin waxaa maanta sharaf noo ah oo farax noo ah oo kalsooni noo ah inaanu halkan ku dooranno madaxdii hogaamin lahayd goboladan dhexe ee Soomaaliya mudug galgaduud iyo Hiiraan dadka ku nool gunaanadkii munaasabada lagu doortay madaxweynaha maamulka gobolada dhexe waxaa ka hadlay madaxweynaha maamulkaasi Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan oo u ballan qaaday ergooyinka doortay iyo bulshada gobolada dhexe inuu ku hogaamin doono si cadaalad ah oo danihiisa ka hormarin doono danaha bulshada gobolada dhexe waxaan kaloo halkan ka cadeynayaa maslaxada Soomaaliya oo taanadu soo hoosgelayso inaan ayadana u istaagayo waxaan halkan ka cadeynayaa dowlad goboleedyada naga faca weyn ee maalinkii Soomaaliya ay ku dhawaaqday dowladda federaalka ay isla qaateen in dowlad goboleedyo la sameeyo dowlad goboleedyada kale oo annaka naga horeeyay inaan si ixtiraam iyo xushmad leh kula dhaqmayno ayaan halkan ka ballan qaadaynaa maalmihii ugu dambeeyay magaalada Dhuusamareeb waxa ka soconayay shirka maamulka gobolada dhexe ay kaga arrinsanayeen waxaana maanta ay ahayd maalintii ugu muhiimsaneed maadaama la doortay madaxweynaha maamulkaasi uu yeelanayo